kalfadhiga golaha wakiilada shacabka ee lixaad ee sanad shaqeedkiisa shanaad kulankiisii caadiga ahaa ee 25aad ayaa lagu falanqeeyay miisaaniyadda taasi oo golaha uu soo hordhigay wasiirka maaliyadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Mudane Axmed Shide si loo qabyatiro miisaaniyadda dowladda federaalka ee sanad miisaaniyeedka 2019 tiris taariikheedka Itoobiya. wasiirka maaliyadda ee dalka Mudane Axmed Shide ayaa si faahfaahsan u soo bandhigay saldhigyada iyo odoroska lagu dhisayo qoondeynta sanad maaliyeedka ee soo socda iyadoo lagu saleynayo jihada guud ee dhaqaalaha Itoobiya amaba microeconomics iyo sidoo kale aragtida waxqabadka dhaqaalaha ee sanad maaliyeedka hadda gabagabada ku dhow. ባዝነው በጀት ዓመት የኢኮኖሚ አፈጻጸሙ በተያዘው ዕቅድ መሰረት ውጤት እያሳየ ሲሆን ሁሉም የኢኮኖሚ አመልካቾች wasiirka maaliyadda ayaa golaha shacabka u soo bandhigay faahfaahinta miisaaniyadda qabyo qoraalka waxa uu sheegay in miisaaniyaddu u diyaarsan tahay iyadoo la tixgelinayo qorshayaasha horumarineed iyo kuwa dhaqaalaha guud ee dalka. waxaa sidoo kale uu sheegay in 520.6 bilyan oo bir loo qoondeyn doono taageerada miisaaniyadda ee dowlad deegaanada dalka sidoo kalena 14 bilyan oo bir loo adeegsan doono fulinta yoolalka horumar waara ee dowlad deegaanada dalka.